بسم الله الرحمن الرحيم وداهر على السوق دبيشة جدا مرحنا عيار سيسو وحنوصل فريستي وانك حلا يا وحوي كودا وسيرة ده اللي يرهدو دقيقة ياسين وطمع محاك تقانان محاسن لوجا بهاي قلب كاسيان قال نجيا لكن waxaan doonayaa in aanu mahad celiyo oo yiraahdo waad mahadsantiin gudoomiyaha koowaad baarlamaanka ama golaha shacabka ninkleedo maxamed mursal iyo gudoomiyaha ku-xigeenka cabdiweli muudey isku siyaasad maahin laakiin haddaa diinta ilaahay u soo baxdaa inaad difaacdaan dhaqanka suban u soo baxdaan waxaad mudan tihiin inaad idin mahad celiyo waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo culimada al-ictisaam ودكتور فكرة سأو كلا دوان نهاي الشيخ بشير أحمد صلاة إيو الشيخ بارود قرحان إيو الشيخ علي وجيس وحالا ذكر وما سنتي سأو صوب بحذين وضو صوب بحذين إن أضوحان قدر قبلنا وسيرده أي وضو شرق قوم اللود نمدا أي بارلوان كهور كنتي صدقوا دي دسين وكو ما سنتي علماء أهل السنة والجماعة وحالا يور علماء دي بقى هايديني إذن آوي لإذن ما هي محاد داعي دادك على فدرين إيو dalka loo sameeyay sharciga qowmaloodiga futiska gelinta maxaad uga soo hadli lahaa soo diintan mas'uuliyad kama saara dalkana xiwaay ونعب قرصون كنا حينجيجا نعصي دغمين موديا رجلنا حي دلكنا حواي والنور سيا نبناقو هبسدي وانا بركو يا نولوشيا بلشدا قم نصيب حنبي ونقدين هرمود رجلنا حي دلكنا حواي وعيد السودين يا مقالة علماء يقدون كبارلوانك لكن waxaan ka hormaraya gabadh leehdo deeqa yaasiin wasiirada haweenka iyo xaquuqul insaanka gabadhaani waxa iska dhalay laba waalid oo wanaagsan baa iska dhalay aabaheed yaasiin nin wanaagsan buu ahaa beesha dirba u dhashay waxay isku leeyihiin maxad cawad hooyadeedna xaliimo cabdi caruush baa leedahay gabadh halyeeyada bay ahayd oo wanaagsan bay ahayd gabadh halyeeyada oo wanaagsan oo beesha habarigii dhalatay oo ayra oo habarijiye way isla cabdi caruush walaasheed baa dhashay qoyskan waxay ka kooban yihiin saddex gabdhood iyo wiil way gabadha mar yaasiin way guursatay oo ninkeedii Westgate baa lagu dilay Allah u naxariisto gabadha la yiraahdo deeqa yaasiin mataqaanaa wasiirada hadda ah nimba adigu sagaashamiyada meelaha nimba adigu ka heestay leeda Awestrifti oo gabadhaana ayra Awestrifti reekanada way yaqaanaan ayaa gabadhan dhoofsaday markii meeshuu u geeyay maalmo kadib way ka tagtay way ka baxsatay kadibna gabadha ma guursan dadka yaqaan deeqa waxay leeyihiin waa naagaha isguursada dadka ah way leedahay dadka waxaas u oleeya ee waxa jecel oo nin maysa guursan bay leeyihiin dadka yaqaan deeqa gabadha la dhalatay hibe la yiraahdo yaasiin iyaduna maysa guursan oo hay'adda iida ka shaqeysa hay'adda iida ee hooyadeed ay mataqaanaa aasaastay ay ka shaqeysaa hiba Nairobi degan yihiin anigu gurigooda mar baan tagay ay baa u joogay ay gurigooda mar baan tagay ay baa u joogay gabadha abtiyaasheedna saaxiibaana ana abtigeed baan baayba badeeqa yaasiin aniga abtigeed ayaan marka loo fiiriyay gabadha Sheekh Xaliimo Cabdi Caruush gabadha reerkan ku weyn habargeedku aad ugu weyn gabadha waxa leeyahay dadka yaqaanaa gabadha ma aaminsana diinta islaamka shaqo kuma laha ma aaminsana halkaas qurbay saa kortay mana aaminsana waxa laga sheekeynay islaam iyo ahadiis nabi iyo ma aaminsana laakiin waa nasiib darro weyn oo dhacday nasiib darro weyn oo dhacday way way sheegaya dadka Soomaaliyeed waa nasiib darro weyn oo dhacday maanta inagoo dad muslima ah in qof wasiirad sheeganaysa oo wasiirada xaquuqul insaan iyo haween sheeganaysa oo qaran sheeganaysa ay noqoto qof noocaasa ay habala leeyahay bila nikaax ba hebel futuh ka geli karaayo haday ka shaxsan la yeeli karaayo waxa in maanta baarlamaanka la geeyo waana ku mahadsan yihiin guddoonka baarlamaanka sida ay diinta islaamka ay u difaaceen
war adigu haddaa soomaali tahay oo muslim tahay oo ashahaadato waxaan ku weydiinayaa sideebaad diin islaam ku jeclayn nabiga maxamed aad u jeclayn haddii gabar yaro dhoocili wax laga sheego maanta soo dhawaa soo gasha ama qabiilkaaga baraha bulshada seed u aamusan tahay haddaad sheekh tahay ama qof caadiya taho soomaaliya waxaa laga hadlaya waa aayihii ubadkaaga maxaa uga tegaynaa ubadka soomaaliyeed maxaa looga tegayaa haddii qoomuluudnimo looga sheekaynayo maanta baarlamaankii oo inta qof soo dhiiratay ay keeni karto maxaa ku yaalla jacaylka nabiga iyo diintaada ku dhaaran u dhimo waa tan ugu wanaagsan waa meesha ugu wanaagsan waa meeshii weyneed baa loo socdaahe meeshii weyneed tilmaamaa la joogaya ay sanadee meeshii weyneed baa loo socdaa ku dhimo ninka la dhihi jiray qays ee layla jeclaa ayaa waxaa la yidhi maalin baa waxaa la arkay isagoo derbiga shuminaayo markaasaa la yidhi qaysow derbiga maxaa dhacay ood maanta loo shuminaya si ku yidhi derbiga waxaa ka dambeeyo wili oo dhexdiisa ku jira gurigan waxaa ku dhex jira wili qofkii aan jeclaa ee layla ku jirtay wili marka derbiga saasa u shuminaya maalina waxaa la yidhi ey baa la arkay ey ka soo baxay guriga layla isagoo shuminaya markaasaa la yidhi maxaad u shuminaysaa eygan markaasuu yidhi eyga shumiska kuma waday meeshuu ka soo baxay guriga aan jeclahay ayuu ka soo baxay marka ka warrama inagoo dad muslim ah jacaylka nabigeena maxamed nabada dugsi ahaatee iyo jacaylka diinteena islaamka iyo ilaahay subxaana wa tacaala ee maanta aan waxba nagu jaajgarahayna yidhi iska noolaada ha yarbo in saada dukada nabiga ku salliya bas sadaqada la baxa sooma sakada iska dhiiba noo raaxeeyey haddii maanta enerjigaas uuna siiyo xoogga inu siiyey ee qabiilnimada isku difaacna ee aan ku shaqaysanno ee ilmaha aan ku korsanno haddaynu maantaba ka dhehin ka war kelmad qomuluudnimo gaalka sheekh waa gaal adigana sheekh muslimaad ta muddayaa sheegay sheekh aniga hadda hol inaan ku noola aniga gaal ima dhihi karo igalama hadli karo ilmahayga qomuluudnimo kalama hadli karo mana igu qasbi karo hadduu qomuluudnimo raba asay u taallaa gabarna waa arkay baarlamaanka hor tagtay oo dhahaysa dadka mataqaanaa gaaloobay xaq bay u leeyihin soomaalinimadoodii in qaataan may sheekh soomaaliya dastuurkeeda waxaa ku qoran 100% soomaali waa muslim annaga hana soo gil hawsha waxaan rabaa inaan qiso yar soo qaato intaan fiidiyada soo gudbin culummada iyo mataqaanaa ka hadlay iyo baarlamaankii wixii tusin say wax u dhaceen waxaan horta ka faa'iidayaa gabadhaydii abtigu ahaa deeqa waxaan leeyahay ilaahay u toobadkeen haddii waxa lagugu sheegayo ee lagugu eedaynayo ay run yihiin ilaahay uga soo laabo farxad iyo wanaag iyo qurux waxay ku jirtaa shadiin islaamka adiga iyo mahad cawad oo diiday sidii u hadla muuday u hadleen iyo meesha la fadhiyay muuday iyo mursal say u hadleen mahad cawad oo diido ah ninka hadda lala hadlayay muuday iyo mursal la hadlayaan ee qasbaya in sharciga la baas gareeyo ee sharciga gabadha maxaa loogu baas gareey la ayana waa idin la hadlayaa wax diin islaamka fiican ma jirto loo mulku loo alxamdu huwa ala kulli shay qadir halka loo laabanayo waa halka waxaan hadda ka hor saddex muslimiina oo caraba oo walaala ayaa dagaalkii jihaadka galay kadibna reer Room niman qolal dhihi jiray reer Room rag reer Room baa ku qabtay dagaalkii reer Room waa ogtiino diinta la nasraaniyada ayay aaminsanaayeen diintaas ay haysteen ay aaminsanaayeen dabeetana markii la qabtay boqorkii reer Room baa loo geeyay wuxuu ku dhahay soo dhawaada cidina dili mayso haye wuxuu yiri saddexdiinaan walaala ma tihiin ha walaalana waa isku xignaa wuxuu ku yiri madax baan idinka dhigayaa oo dawladayda ayaan madax wasiiro iyo xilka rabtaan ka siinayaa kow gabdhahaygana waa idinku darayaa labo maalkaana aan haystana waxaad taan ka qaadanaysaan saddex diinta nasraaniyada soo galo qaato diinta islaamka isaga yimaado nakata waa diideen ma diideen annagoo dad islaam aan nahay diinta islaamkaan haysanaa alla subxaana wa tacaala ka baqaynaa isagaa boqora lahul mulku wa lahul xamdu huwa ala kulli shayin qadiir sheekh waxa kaloo waday diinta fataalnimada iyo been abuurkan waxa watana qaadamayna dheheen waaba nimankii usana wiri saddex digsi
diyaariya saliidda ku shuba saliidda lagu shuba dabka la shido kii weyna le kale boqorkii xagga fadhiya mutakibir waay sanku taaga boqorka wuxuu yiri diinta saliidda ma qaadanaysaa maya kurida shab bigsuweyno sa okar karayo saliidda la dhiga waa gubtay kii ku xigay kale sheekh kale diinta nasraaniyadda ma qaadanaysaa maya islaam ana muslim qalisa kurida waa lagu riday waa gubtay kii yaraa loo yeeray ugu yaraa ilmaha saddexdan kale loo soo istaagay waxaa la yidhi yaa sheekh diinta nasraaniyadda ma qaadanaysaa islaamka soo baxaysaa mayo wiil boqorkii ay kurida nin maal qabeen oo boqorka ilmaadeer ay hayeen soo istaagay boqor jooji wuxuu yiri maxaa dhacay wuxuu yiri kan waa yar yahay buu yiri waa nin yar anaa haya qorshaan hayaa buu yiri kan wuxuu yiri anaa fidnaynaya anaa soo gelinaya diinta nasraaniyadda anaa ku hayo waxba ha gubinay waska nin yar weeye iska daa boqorkii baa wuxuu yiri boqorkii khaale wuxuu yiri bimaada sidee baad uga saari kartaa ninka saa soo indha adag ee waalidkiisa ku horgubay dabkaas aan u shiday aan dhahay waa kugu ridahay diidan inuu islaam ka baxo bimaada adigu see uga saari kartaa qaala wuxuu yiri ninkii waxay ahaa ninka tijaarka qaala wuxuu yiri qad calimtu waxaan ogahay anigu anna al-araba asru shay'in ila nisa anigu waxaan ogahay buu yiri yaa arag waxay ku findoodo waa dumarka uu yiri nimanka arbeed waa naaga jecel yihiinoo waxay ku fidnoobayaan waa dumarka uu yiri marka kan wuxuu yiri anaa qorshe u haya ii sheeg buu yiri qorshaad u hayso wuxuu yiri ma ogtahay adiga boqorow aniga gabadha ugu quruxda badan ma ogtahay yuraan dhal oo aabaheed ana ha ninka ugu maal qabeesa reer rumnaan ah boogta ha bas ninka wiil anigu waan wadayaa guriga quruxda ma geynayaa gabadhana waa uu waxaynayaa shaqaale u sameeyaa cunto u sameeyaa de hadda waa nin arbeede marka cunto fiican la siiyo oo gabadhu hadba saat tiraahdo ninkan asaga gabadhi jeclaada soo gal bay dhahay diinta hees soo gal nasraaniyadda soo gal marka ka waska galaya wax dhib male wallahi wuxuu waa fikrad fiican guriga la geeyay guri markii gabadhii meesha lagu soo xiray shaqaale loo sameeyay wuxuu ninku wiilkii horta gabadhu si kasta ay soo qaawiso sida ka siiso harar marto waa shahwaad la moogta ninkaani habeenkii oo dhorta salaad taagan yahay ilaahay u bariya waa maruu quraan akhrisanayo waa maruu salaad taagan yahay ilaahay caabudayo maalinta waa maruu dukanayo iyo maruu jiif 40 cisho boqorka loo qabto waa yimid gabadhu wuxuu ku yiri 40 cisho hadda waa maalmo nooga haray ninkii maxaa ka qabsooma waxay tiri abo see uu fikirtay ninkaan inuu inta ku diinta nasraaniyadda ku qaadanayo wiilkan see uu fikirtay fiir ilaahay wax basha wax ka wato maxaa dhacay waxay ila tahay way tiri ninkaan waa maruu salaad u taagan yahay maruu ilaahay caabudayo ilaahay tuugayo iyo maruu hurdayo way tiri hadal ilaaha may isqaawiyay futu u jeediyay naasaha u jeediyay waxay tiri ninkaan aniga ima jeedo waxa u malaynayaa saabo waxay tiri wiilkan abo waxa ka hor muuqdo waa nin labadii walaal lagu horgubay oo hortiisa lagu dilay inuu maskaxiyan wali murugaysan yahay waxay ila tahay abo hadaan taxal boqorka waqti kale nooga soo qaado waqtiga noo biiriyo meel aan magaaladan ahayn nagay halka waa meesha wali lagu dilay halka ninkan ilama ah no meesha ninkan ku qaadana sanid boqorku u tagay oo sheegay waa la isku waafaqay nin lacag la weeyay waa la qaaday magaala kale geeyo waardiye korna waa loo sameeyay guriga dadkii shaqaalihi wax loo sameeyay markii halkii la tagay 40 kala weestaa ninkii waa basiis wax iska bedelay gabadhu si kasta ha samayso sharaxa u dheesho ha isgidgidiso ninkaani waa maruu salaad taagan yahay waa maruu quraan akhrisanayo iyo waa maruu waxyaal tacna seexday bas wax kala adduunyo kala shaqo kuma leh gabadhu baa aragtay ninkaan maanta oo dhan ilaahay buu caabudaya bas wax kala ka maqna ilaahay buu caabudaya ilaahay buu ku xiran yahay
wargabadha waxay tiri allay leh waxay ku tiri war ma ku sheegaa hebelow haa warniyow nacajiiba hadda haye warniyow waxaan ka helay oo aan rumaystay diinta aa haysta inay diin sax ah tahay waxaan ka helay saa ilaahay oo caabudaysid sidaa diintaada u dhigan tahay aniguna waxaan doonayaa in aan diinta islaamka qaato kayf ku dhaa wiilkay kayf say macquul ku tahay war haddaaba aniga aabbaha iyo boqorkii i haystaan reer ruum oo saliid la ii karkarinayaa oo adiga la iisoo kaadina luleynkaa soo guursoo soo baadiyey aniguna waa kaanka marka labadayna hadii la wadaadira ka wadaa may tiri gabar nin lacag la dhalaan hayo anaa qorshe ku haya hayo qorshe haysa muxuu yahay waxay tiri wasa baxsayna marka dhulkii aa kasoo jidda geynaysaa halkaasaan ilowkaa nikaaxinaya waana shahaadana igu qabanaysaa waa musliminaysaa bartaasaan isku guursanaynaa bartaasaan iga ilmo dhalaysaa anigoo gabar islaamad ah diintaada aad baan uga helay yaana war idinku daaline habeenkiiba gabadhii 2 far soo diyaarisay intay wax soo musuq maasuqday wax soo xigto waa dumarku rag waa ka aqli badan yihiin waa qatar labada far say qaateen markii ayagu habeenkii dhan waa socdaan maalinta markay tahaan xogaa sahay wataan meel la galaan ninkan cibaadadiisa wixiisi biis la soo baxaa waa iska wasa qaataa waa iska dukadaa halkaasay ku dhuuntaan habeenkii kalena way guurayaan adigu ma dhawaa caradu moogta meesha la socdo habeenkii dambo hadda waa cabsaya moogta nin reer ruum oo dhan baa meesha carada joogo nin boqor ahaa ninkan daba taagano na gabadha nin maal qabeynaha dhalayo aada loo ilaalinaya moogta waa baqaya habeenkii dambe ayagoo guuraynayo labada faras wato ay waxay maqleen qarab shanqar الله اللي هو فرض رواق فرض الصعدوي فرض عجيب ويابي الله أكبر وأنا هيعاو أفرت الجهفر داك صودا فريستي لو سارية الله أكبر بقدرة الله الله إله ود بدنا وحا فرسك لو فرسي ugu horreey ka soo degay oo indhaha saa isugu dhifteen oo isleeyay waa labadiisii walaalood boqorka reerkum oo ku riday saliida oo nool war hebelow salaamu calaykum wa calaykum salaam haye isku boodeen say ku dhici kartaa ninkii uu dhammaanaa wuxuu dhahaa malaha noo maahayta waa riyoonaysaa say ku dhici kartaa markaasoo soo hebel ma tid haa ma riyoonaya gabadhii ma riyoonaya see waa soo labadii walaal ma tihidiin haa waa annagii baa la yidhi ma xasuutaa maalintii inaad naga dambayso labadeen nagu rida haa marka saas nagu ridayba malku jibriil baa saa noo yidhi jannadaan daawanaynay jannatu firdaws iyo kadibna jannada dalaq nala sii wax dhib ah iyo wax problem ma arag haye haddana waxaa nala socoto mataqaanaha malaa'igta rabbi oo dhan baa nala socoto malaa'ig ilaahay baa nala socoto fardaha aad arkaysa dhawaaqaya halkan iyo arada waxa dhawaaqaya arkaysidba malaa'ig baa waata haye Allah subhanahu wa ta'ala ha soo dir malaa'igta anaga waa nala soo raaciyay waxa la yiri qabar cajiib ah la idin hayaa walaalkiini gabadhii baa tiri waan soo islaamayaa gabadhii wiilka isku soo nikaaxiya janna ugu bishaareeya ba saasa u socon bartiyala dabasha malaa'ig baa wardiinaysa reer room iyo reer hebel waxa ka qaban karaan meeshii baa la waxeeyay markii baa la qurxiyay gabadhii wiilkii baa la isku nikaaxiyay Allahu akbar Allahu akbar hooshi baa dhameystay hooshi baa dhameystay waa gabadhii iyo wiilkii oo isku xalaal oo meher xalaal la isku nikaaxiyay salayri معين وجنة عبادة ربي كل ذلك بشارة سالة كاي وضنا نمدي وعلى قطع باريسو يقانو أيا حلي انتهى سيئي وقرر ما يستهبين كون الله لحظة فيه ولا لجوغي أيا حلي الصباح وحي كتاب بدا شيئا حلي الصباح هاش يا لقيتك وأكي والكي السلام عليكم نمدي سلام عليكم قلبس
way dhacay jirta xilligii dad badan inta soo nooliyay la soo nooliyo awoodaha ilaahay mucjisooyinkaas way dhacayeen mogta marka bal ka warrama marka sheekada waxa u soo qaatay war saddex nin baa baarlamaanka madax ka ahayd nin wuxuu ahaa mursal ninna muuday ninna cawad war mursal iyo muuday bannaankay iskeeneen war wax fiican bay sameeyeen waa bareereen oo hadal cad bay ka sheegeen difaaca diinta islaamka diinta islaamka iyo sunnada nabiguba way ku dhageen war ma hadoo soo qabso war ma hadoo waxaana waa mucjise war ha ka hari raggaaga war ku adayg diintaan wax dhaama lama hayay gabadha adwaanaadkiin iska daa warkeeda ku dheg soo istaag mowqifka ay ragga qaateen qaado wallaahi oo billahi talla bishaara ku dambaysa bishaaro ayaa ku dambaysa qisadaas waxaan xijsanayaa waxa weeye inay la daawataan fiidiyowgan culummadu ka hadlaysa mawduuca koowaad waxaa weeye mawduuca ku saabsan shalay wixii ka dhacay baarlamaanka oo ku saabsanaa qaanuunka lagu magacaabo qaanuunka galmada ama jinsiga lagu magacaabo marka annaga culammadii ah waxaan ku caddaynaynaa meeshaan inaan taageersannahay oo aan bogaadinayno mowqifka ragganimada leh oo islaamnimada leh oo guddoonka baarlamaanku istaageen oo ku saabsan in la hor istaago mawaadiicda aan macnaha lahayn oo dadka muslimiinta soomaaliyeed ee diintooda iyo dhaqankooda ku ah halista inay diideen ayagoo waardiyeynaya caqiidada iyo diinta iyo dhaqanka fiican ayagoo maaragtay xilkooda gudanaya marka waa bogaadinaynaa jazaahum allahu khayran baa leenahay wixii loo magacaabay ama loo xilsaaray ayay guteen dhammaan ummadda soomaaliyeedna inay ku taageeraan baa rabnaa tan kale waxaa weye waxaan kaloo runtii soo jeedinaynaa in xubnaha baarlamaanka dhammaantood saasoo kale ay noqdaan waxaan kaloo meeshaan ka caddaynaynaa in aan diidannahay ama la yaabannahay mowqifka xildhibaanaddu ay ku hadashay oo ay tilmaamaysay in shardiga islaamnimada ah laga tiro qaanuunka asaga ah oo ku saabsanaa hay-addan filaya agaasimaha shuruuda agaasimaha hay-adda socdaalka inay ahayd baan filayaa oo shardiga islaamnimada ah in laga saar ay soo jeedisay oo aamoodid inay u adeegayso ama ay difaacayso dad soomaali oo gaaloobay oo ay u raadinayso meel ka soo geli lahaayeen ummadda soomaaliyeed marka waxaa leenahay middaasi wax bannaan ma aha gabadhaa dadkii soo doortay waxay u soo doorteen inay danahooda iyo danta islaamka ay maaragtay u matasho in marka magacii ummadda loogu qareemo oo lagu difaaco dad ummadda ka baxay oo diinteeda ka baxay oo ummadda khilaafay runtii shay munaasaba maaha marka waxaa leenahay dhammaantiin iyo dhammaanteenba waxaad naloo xilsaaray aan gudanno dalka iyo diintana aan waardiyeyno haddaad daawateen raggii shalay muuday iyo ninka la yidhaahdo mursalna waxay dheheen waa kan naga daaya waraa ummadda soomaaliyeed oo mas-uulkadii markaasaa futaa wax iska gelinaad inta noo keenaysan waryaada waxaas maxay tabaas wasakdaas iyo qashinkaas oo weliba aad noola daba taagantihiin war waxaas naga daaya ilaahigana ka cabsada muslimaad tihiin qofkii muslimnimada ka baxay oo gaal naqday gaalnimadiisa ha aado qofkii muslim ana waxaan annaga qabna inuu raaco waayo dastuurkan iyo shareecadan islaamka war dastuurkan aan ku dhaqannaa muxuu sheegaa aaway waxaad akrinayseen dastuurkan muxuu sheegaa muxuu sheegaa ma wax kan ka baxsanaad rabtiin aan inta keegno wali annaga inta iskama fafadhin meeshaan dad waaweynaan carruurna ma nihin mana garan li'in waxa wanaagsan waxuna ma garan li'in markaasaa sidii ciyaalkan intaanta noo soo istaagtaa aad waxaad noo keenaysaa waxaan diinta islaamka ay shuqul ku leeyahay qodobka afraad sidaanu u qoray daliilo dhegaysta qof kasta wuxuu gelayaa fildembiyeed kufsi ah haddii uu horta sharcigan wuxuu dhahayaa qof kasta gabdhaha xitaa fildembiyeed kufsi ay geli karaan yacni qof kasta wuxuu gelayaa fildembiyeed kufsi ah haddii uu ma rabin inaan akriyo laakiin waa xishoonaya laakiin waa akrinaya si ula kaca
si ula kaca u geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo daloolka xubinta taranka kooma dhegaysta hadda dhegaysto kooma soomaalidu way ka xishootaa futada kooma ama xubinta taranka ee qof kale xubinta taranka ee qof kale ama adeegsado wax kasta ama xubin ka mid ah jidhka iyo faqradda ba dhegaysta marka faqradda ba wuxuu leeyahay qofka kale uusan ogolayn waxgelinta shuruudda ku xiran waxaa waay inuu ogolaado shuruudda keliya ku xiran inuu ogolaado waay hadduu ogolaado ayadoo halkaasi ay isku haystaan haddii uu ogolaado itmiinis ma aha dembi maaha waxaa fiirisaan marka shareecada islaamka ma ogola waxaan rabaa xildhibaanadda inay si fiican u dhegaysto soo jeestaan rabaa xildhibaan waxaan kuu sheegayaa marka ugu horreysa waddankan waa waddan islaam ah shuruucda la samaynayo waxaa loogu talagalay shacabka soomaaliyeed in lagu dhaqo waddankan diin ayuu leeyahay laakiin nasiib wanaag midaan idiin sheegayaa dastuurkan dadka soo sameeyey khubarada dastuurkan soo qortay hal qodob oo wax walba ka badbaadinaya baarlamaankay ku soo dareen waxaan waafaqsanayn yacni shareecada islaamka iyo maqaasideeda sharci ma noqon karaan lamana keeni karo baarlamaanka marka kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxayaa zinada wuu fasaxa wuxuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tagi karaan uu fasaxayaa wuxuu fasaxayaa because futadu ka hadlaa futada laga geliyuu ka hadlayaa wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda waxay soo gudbisay inaan laga aqrin meeshaan laakiin duruuftaa kallifaysa inaan aqrino aan caddayno waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waayo sharciga loo keeni waayo waxaan idiin sheegayaa sharcigaasi guddiga hawshaan u xil saaran in badan aan ka wada hadalnay teedi kale hal qodobaan idin caddaynaya sharcigan xukuumadda markay ansixisay xukuumaddii hadda dhacday culammada soomaaliyeed oo dhanaa ka hadashay waxay yidhaahdeen qaarkood dadka sharcigan soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen inayn islaam ahayn sidaa daraaddeed waxaa loo saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddi asaga madaxa uu yahay oo culamaa u diinka soomaaliyeed dadka la yaqaano ay ka mid ahaayeen waa laga soo shaqeeyey sharcigii wasiiraddaa loo yeeray waxaa la yidhi waxaan rabnaa sharcigan in la saxo wasiiraddu waxay tiri wixii aan soo qortay keliya ayaa xukuumadda laga ansixinaya wuu ka soo gudbay waxaan fadhiisinay guddiga joogtada sharciga markuu noo soo gudbay waxaan fadhiisinay guddiga joogtada ee baarlamaanka golaha shacabka waxaan tusnay waxaan ku dhahnay qodob dastuuriya ayaa wuxuu dhigayaa in waxaan waafaqsaneen yacni shareecada islaamka iyo maqaasideeda aan sharci noqon karin xukuumaddiina waxaanay soo gudbisay maxaan ka samaynaa guddiga joogtada waxay soo jeediyeen inaan xukuumadda dib loogu celin ee guddoonka baarlamaanka uu qaato in sharcigan la hagaajiyo guddoonka baarlamaanka mas-uuliyaddaasuu qaatay waxaan wacnay culimmadii soomaaliyeed oo aan islahayn shareecada islaamka si fiican ay u yaqaanaan oo weliba ku xeel dheer keliya ma aha shareecada islaamkee qawaaniinta kalena bartay culummo la yaqaano oo magaaladan muqdisho iyo meelo fara badan laga yaqaano culummadii dhowr maalmooda lala fariistay waxaan u yeernay sharci yaqaanadii golaha shacabkaan u yeernay waa la wada fariistay culummadii iyo sharci yaqaanadu way fariisteen waa la saxay dukumenti ay soo diyaariyeen dukumentiga ay soo diyaariyeen ra-iisul wasaaraha waxaan ku nidhi dukumentigan waxaa soo diyaariyey dad la yaqaano oo sharci yaqaanaha iyo culimmadii soomaaliyeed
wixii khatarta ah ku jirayna waa laga saaray waxaan rabnaa wasiiradda faraha laga saaro ee ha ku soo darto xukuumadda mar labaadka soo celiso haddana ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi awood uma lihin wasiiradda inay qaadato ay wax ku soo darto idinka laysaa yeelaysaan yeela waa la soo noqonnay kalfadhiga markuu furmaya haddana waxaan u yeernay guddigii joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka guddigii haddana su-aalaan weydiinay waxaan ku nidhi dokumentigii culimmadii iyo sharciyaqaanadii golaha shacabka ay soo diyaariyeen xukuumadda markaan u gudbinay xukuumaddii waxay tidhi idinku saad ka yeelaysaan ka yeela maxaa tala ah guddigii joogtada waxay soo jeediyeen waxay yidhaahdeen sharciga sida xeeroosaadka uu qorayo ama dastuurkuba uu qorayo maadaama aan awood u leenahay golaha shacabka ee baarlamaanka awood u leeyahay in uu ka bilowdo sharciga xukuumadda ay soo gudbisay ha la joojiyo waxaa la yidhi ha ka bilowdo sharciga golaha shacabka ha ka bilowdo sharci ayay soo diyaariyeen guddigii loo diray hawshaasi ayagoo haddana kaashanaya sharci yaqaanadii iyo khibraddii hore ee dokumentigii lasoo diyaariyey waxaan rabnaa marka xildhibaanada mid inay ogaadaan waddankan waa waddan islaam ah shuruucda loo sameeyana dowladdan islaamka ayaa lagu dhaqayaa haddaad wada daawatay waxaan rajaynayaa gabadha abtuga deeqa yaasiin ilaahay u toobad keento diinta islaamka ay si fiican ugu dhaqanto waxa lagu xamanaya hadday run yihiin ay iska dayso inay u fikirto maalinta weyn ee qiyaamaha inay ogaato waxa weeye ilaahay midka daalimka ah ee ku caasi xitaa wuu irsaaqaa xukun buu siiyaa towraduu fariisiyaa ya ilaahay qof kastoo xumaan sameeya wuu wanaajiyaa laakiin yowma laa yanficu maalun walaa banuun ilaa man ata allahi biqalbi saliim maalin baa in sugayso culumada soomaaliyeed waxaan leeyahay war culumo ilaahay ka baqa war culumo doorkiina qaata waa halkaanu marayna maanta oo ujeediin anigu waxaan idin leeyahay doorkiina qaata dadka soomaalida waxaan leeyahay war marka nabigeena maxamed nabadna xiskuugsa atalacaaya war nabigu wuxuu yiri man axyaa sunnati faqad axbari waman axbari kaana maci fi ljanna man axyaa sunnati qofka soo nooleeya sunnadayda faqad axbari anigoo jeclaaday waman axbari qofkii jeclaada kaana wuxuu ahaaday micigayga faljanna jannada war fursadaa haysataa niyahow aan ku warramay ama gabar yahay jacaylka nabigoo la jeclaado waa faa'iido weyn waay war iimaankaaga buuxso war haddaad aragto qof nabiga caayaysa oo ku gafaysa ma cayne nabiga ma caynee qof dulmin haddaad aragto caayaysa adeer kaalinta kuu bannaan ka qaado qof diinta islaamka waxaad guud aragtay kaalinta kuu bannaan ka qaado waxaan oo dhan waa iska guranaysaa waxaan arkaysid waa faa'iido weyn waay waxaynu raadinaynaa maanta haddii maanta ilaa forexiska lacag laga faa'iidaya sultaan ku yaacno haddii gabar qabiilkaaga wax laga sheegay sultaan maanta oo xanaaqdo haddii siyaasi qabiilkaaga wax laga sheegay sultaan xanaaqdo sultaan annaga is cunayno sultaan yaa wareey ka qaxay ka baxay iyo cayda baxaysa la yaab war haddii diinta islaamka lagu gafo adaa rag baa baashaan soo garab jooga weligooda jannooyinka janno ku galo janno shaqaystay war janno shaqaysta janno shaqaysta haddii nabigaaga weeye maxamed ee sharafta badnaa ee qofka u gafta adeer wixii kaala gudbo ka qaado oo ka dhiidhi laakiin haddii kuu qabiil wax laga sheegana xanaaqi haddii siyaasi xanaaq ha dagaalami maanta oo dhan haddii nabiga korkaa lagu caayana see waa xaalkaaga war fiiri ilaahay caafimaad buu ku siiyey ubad buu ku siiyey wuu ku irsaaqay waa adigaas iska baashaalaya war waqti yar si ilaahay subxaana wa tacaala inaad diintaada ku difaacdo oo nabiga ku difaacdo oo dadka aa wanaagga ugu sheegto ood xumaanta uga reebto oo waxaas qaado doorkaas qaado war ilaahay haddaad tahay sakraan haddaad tahay sakraan macsiyeystay oo duliyoobay ilaahay weli wuu ku ilaalinayaa xaggaas haddaad joogto ilahay wuu ku ilaalinayaa sababtoo ah waxaa jirta rajada ah inaad qof fiican noqon doonto haddii ilaahay dulinimo kuu qoray waad duloobaysaa
haddii ilaahay wanaag ku qorna wadada wanaagaad fulaysaa laakiin dadaalkeeda adaa laga rabaa gabadhayda abtigu ah deeqa yaasiin waxaan leeyahay ugu dambayn haddii ilaahay hanuunkuu qoray ilaahay ku soo hadeeyo haddii ilaahay hanuunkuu qoray ilaahay subxaana wa tacaala ha ku soo hadeeyo diinteena nuurka badan allah kugu soo hadeeyo iimaanka allah kuu sugo intii aad diinta islaamka iyo shariica islaamka u gaftay amaad ka hadlaysay in ka badan gabadha u qabata allah kaa dhigo hadduuse ilaahay hanuun kuu qorin oo ilaahay waddo qadan iyo dulnimadaas mataqaana aad ku socoto oo kuu qorna ummadda allah kaa qabto abtiga abaan nahay ummadda allah kaa qabtaa ku leh daar cali wuxuu leeyahay dabaysha geedaha marxdan ciyaarsiiso intaan barnaamijkan uu kalamida kulmi doono nabadgelyo